التجريبي النظري التطبيقي أي ليرة علم التجريبي والنظري والتطبيقي علم قاس محوي هاي علم قاس حويان العلوم المادية التجريبية التي تستدل بها لوحدانية الله سبحانه وتعالى وتقربها إلى الله سبحانه وتعالى وهو علوم التجريبي علم التطبيقي وإلهي كون كان سبحانه وتعالى وناس خري ونقبري وإلهي اللي قد وهذا إلهي اللي عابده والعلوم الشرعية أيضا عن يعني دبتها الله وكل فاقا وكهرين وحكم علوم تاس العلم الطبي علم الطبي اللي يراد يا كمده عافماتك وعلم اللي مرمانا لانه جسدك انسانك يجر كيسه يا جسديسك كلا دوانيد waxa lagu ogaan karaa cilmiga si loo daaweeyo insaankuna waa insaan de ilaahay subhanahu wa ta'ala koon kan uu keenay san sheegayna inuu khalifatullah fil ard uu noqdo oo diinta ilaahay u istaago marka caafimaadkiisu aad buu muhiim u yahay fi diin islaami waxa kale oo kamida culumtan la yiraahdo handasa ama engineering la yiraahdo oo kala duwan oo intaas oo boqol nooc noqotay oo noloshan adduunyada aysan ka maarmin oo qof walba u baahan yahay kursiga ku fadhiyo nima sameeyay miiska ku shaqaysanaysa nima sameeyay diyaarada saaranta nima sameeyay baaburka wadata nima sameeyay waa engineering waxa soo dhan guriga deganta nima sameeyay culumta saas oo kale taa nolosha oo dhan ay u baahan tahayna in la barto waajib waa iyadana dadka muslimiinta ana culimadu waxay isku raacsan yihiin in muslimiinta qayb kamida ay barato in waajibku uga dhacayo muslimiinta oo dhan hadii la kulligood ay jaayir ka noqdaan kulligood inay dimaabayaan oo kulligood ilaahay cadaab ka mudanayaan subhanahu wa ta'ala idan culumtaasna waxa la culum tajribiya وانا علومتي من الشافعي او يري تعلموا العلم الطبي علم الطبي برت ايو يري ارضي سوى الله لان اليهود والنصارى قد غلبونا عليه يهودي النصارى نغور براسا نوقات كادو يري وانا برتين امام الشافعي انا رحمه الله عليه وعو يري الشافعي العلم علمان علم الابدان علم الاديان وعلم الابدان العلم علمان علم قال علم بو يري علم الاديان قال الله قال رسوله علمك شرعي وين سو شيغني وعلم الابدان يا علمك عافمادك وايو بدنك لو برتو sida loo daaweeyo waa laba cilmiyo kala dhigan way marka taban cilmiga sharciga sareeya oo weyn kan kalena waa ku xigiya marka maxay la kaas wuxuu ku tacalluqaa ruuxdi kan wuxuu ku tacalluqaa jasadka ruuxda iyo jasadkana waxa uu markaas sareeya ruuxda anta bil ruuxi la bil jasad insan hada waxa insan ku taa ruuxdaada way jasadkan waxa waa jitha ima way ciidu kiimid ciiduna ku noqonaya laakiin ruuxdu alla ka timid alla ina aadaysa marka dambe waxa loo raaxaynaya ama la jannaynaya ama la cadaabinaya ida way waxa ilaahay aakhir mugil taga jannada la subhanahu ida way jasadku waxa ciidan ku noqonaya in ka soo ruuxda جسدك الله أبور دونا مركب قبره كشيء مركب روح لا سريسة ولذلك دينته حيكون تعلق روح ذي كتعلق ذا ينفته عافمتك نحوك تقول بدن كوك تعلقها لكن بدن كانت روح ذو أبو هنتاي ومن علاقة الآن تدوين أنت اللي جوجو سيد درادة ولا علم ينقل لجن ضبق واحد دبي على إنجنيرنج إنسان شاغنا علم الفلك علوم تكلماتيك دقاله إدارة كل عصرنا ولا جمرمان إلا برتو وأنا جمرمان إلمان وتر به لكن محن برنا علوم تاسون لماذا نتعلم هذه العلوم سواء كان علوم شرعية أم نقطة علوم مادية نقطة محن برنا ولا وحنو برنا لنتقرب بها لله سبحانه وتعالى تاسعوا وين اللوغ دوان سبحانه وتعالى يعني ضد بدن هدفك اما ujeedada ayay kalmaan hadii ujeedada ay ka dhuntan qiimo la marka cilmigaaga juhdigaaga khasaaro noqon waa in cilmigu oo noqdaa hadafka loo baranaayo inuu yahay Allah in lagu dhawaado Allah inuu lagu rilageliyo subhanahu wa ta'ala ilaahay in lagu jeclaado usbuuna ku jeclaado taasal maxay adduunada joogi maysid bari waa dhimanaysa walidaalika aafada labaad waxa waa dadka culumta maadiga bartay انت بدل ما دام قالوا علومه التجريبيه هذه جامعاتود اي ادغ هوريان جامعه العالم الاسلامي اللي قالوا الدوله دسن عالم الاسلامي دولديس مره la kala torturay khilaaf islaami wala gudumiyay ayaga wala isku diray culumti waa loo diiday diinti waa la nacsiin badan oo kamida marka waa kala daasayeen xogo doqonnimo ka jirta agtooda marka jaamacadihi tayada lahayd aqoonta lahayd dhan gaalada furatay culumti horumar badan ay ka sameeyeen awalna caalam islaami ka qaateen oo culumta ragga bilaabay ibn sayna iyo ibn farid iyo nimanka waa weynay culum abu hayyan iyo علومة مادة كيمياء هي فيزياء هي مارتي كيمستري هي بيولوجي هي بالله علومة الإسلام كان بالله علوم الإسلام كان بالله لكن مركز دولة الإسلام كوي دعدي أو علوم يعني عن لبه هنا يزودي أو بين هواس الدنيا اللي جاها جري الدنيا اللي قالها اسكال أنا وأنا محل قال لي مولعي أنقلنا لسكير إمارة هي سوامع ده اللي قال إيه اللي الدنيا اللي قالها اسكال هلا قال لي حدو خلط الدين اللي فهم الدنيا قال ما الدنيا الإلهي بقى كان وعنوك كان لإقامة الدين الله وتنشيقنا عيد ورئيس يا آدم خليفة الله في الأرض لك إنه خليفة الله كان الله لو تلقى سواء مؤمن أو صالح مركا ما فهمت على الخلطي قال له لغة الدويني قالوا وكيف فائدة طبعا جامعة وين الاستان علوم تجربية معاهد تسرع يعني الدويني هرمر بدنا كسم ميال مركا أرضني أو مسلمين تموجي قال له تكتي الجامعة اللي كسب بحين وحيب أوقاتين بقى جامعة علوم المادة هرمر كان إن لو جار إن دين تلاهي لقته مركا سكوب كوسكا أنت لو سوقات يا إن لعبوا إن ناقه ما ارتقاقون لحبوده إن كلابيلا يمالها فسقة يبحثوا له يذهبينك ماشي مساجد اللي قاعد لهاي إن يعني دراجة يبقت الآذو بربر أخلاقيات علومتي اللي تصاحب بارك دقن كي قال هذا الجلاب
marka aafo weyn waa halkaas ka dhacda inkastoo ilaahay subxaana watacala hadda madaartaas ay sii dhimanayso maxaa yeelay qofka ilaahay ka leexda naftiisa uu damarayaaba horta intuusan bal diintiisa iyo u gudbin mujtamaciisa asaga horta baaba'aya walidaalika qoomka noocaas ahay ee akhlaaqdoodii ka tegey dhaqankoodii wanaagsanee ka tegey diintoodii ka tegey burburaa ku dhacay waa burbureen iyagaa baaba'ay waaba iska baaba'een horumar adduunya ma samayn karaan mid aakhira iskaba dhaaf aakhira shaqaba ku male laakiin ilaahay wuxuu soo saara markii dambe dad saalixiin ah oo culumta maadiga xambaarsan oo dhakhaatiir ah oo injineer ah oo falakiyiin ah oo geolojiyiin ah oo maxaamiin ah oo ekonomiyiin ah oo dhinac kasta ku takhasusay oo haddana masaajidka dadka kaaga horreeya oo saalixiin ah oo ilaahay ku xidhan oo culumtii maadiga ahay u daliishanaya waxdaaniyat ullahi subxana wa tacaala koonkan sakhiranoo ilaahay uu sakhiray ee qaybihiisa sare iyo qaybihiisa hoose o dhan ilahay uu sakhiray ee aayadihii subxana wa tacala alla uu yidhi wasakhara lakum ma fi samawati wama fi lardi ilahay waxuu idin sakhiray dhulka iyo cirka oo alla uu yidhi subxana wa tacaala huwa aladi jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakibiha ilahay dhulka waa idin sakhiray ku socda wa kuluu min risqihi risqigiisa cuna wa ilayhi nushuur asaga ayaan idin soo kulminaya ogaada oo ilahay isuu keena xiray wuxuu isuu keena xiray alla subxana wa tacala cilmiga maadiga iyo kii diiniga isuu keena xiray cilmiga dambiga markuu ka hadlaya muxuu yidhi alla subxaana wa tacaala wuxuu sheegay maraaxishi ou maraayo oo dhan janiinku khalaqakum min nudfatin uma min calaqatin uma min mudqatin mukhallaqatin wayr mukhallaqatin ila aakhiriha xadiidka aayad kale wuxuu ku leeyahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun soo naftiina ma arkaysiin ma fiirinaysiin siday u abuuran tahay hadihi alajza almutanawica ya jihaaz tanafusi jihaaz cadmi ah jihaaz nuqaaci ah jihaaz maxaa yani maaratay yani cidaam jamiic alajhiza intaasoo maxaan ku yidhi casharaat alajhiza marka walaal waxaasoo dhan waxaa loo abuuray inaad ilaahay waxdaaniyadiisa iyo cabsidiisa aad u hanuunto inaad ilahay ku xamdiso litakshir inaad ilahay ku shukriso subxana wa tacaala sidaa daraaddeed aafadii waxaan nidhi kusoo khulaasaynay cilmigu maxay noqotay kow in qofku uusan ilaahay ugu dhawaanin culumtii sharciga aheed ee isagoo yaqaan uu ka leexdo ee aayadihii axaadiistii uu barto laakiin xujo ay ku noqday aysan isaga xujo u noqon culumtii maadiga ayna in badan oo kamid dadkii soo bartay inay dhaqan gaale ay qaateen oo rabbigood uga leexdeen culumtii uu barana ay ku shukri waayeen oo markaa ay burbureen mujtamacoodana ay baabi'iyeen inkastoo ilaahay subxana wa tacala marka dambe addoomankiisa uu daba qabtay oo alxamdulillah in badan oo kamid a maanta dadka aqoonta maadiga lahay ay ilahay soo laabteen diintiisa